هاوي مناكسن mahadsanid saaxiibkayga waliba aan wada shaqayno Ali Kunfuro iguna asumay inaan meeshan maanta ka hadlo ma idin sheega sababta aan u bartay Soomaali maalin ayaan soo galay maqaayad oo aan weydiistay ano markaas ma aqoon erayga ano waxaan weydiiyey waxa lagu dhaho milk luqada Soomaali markaas ayuu yiri ano waan qoslay sababtoo ano Spanishka dabo waaye markaas ayaan go'aansaday inaan Soomaali barto waxa awiyay inaan Soomaaliga barto waxa weeyay aniga baabuur maalihi waxa weeyay aniga baabuur maalihi marka waxaan kula kulma Soomaaliya jidka baska taxiga iyo suuqa Carmel maalin aniga iyo gabadhayda yar taxi baan saarnay markaas ayay tiri aniga gabadhayda ayay tiri aniga af Soomaali waa aqaan run waaye iyo markaas ayuu darawalkii oo Soomaali ahaa yiri what markaas ayay tiri kow labo saddex afar shan iyo darawalkii wuu qoslay badan aniga markasta oo aan af Soomaali ku hadlo dadka way qoslaan mararka qaar wahanada suuqa Carmel markaas ayaan intaan gato shaah iyo sambusa ayaan la fariista odayaasha fadi kudirirka fadid wax wanaagsan dhaqanka Soomaali ma jecla inay guriga iska joogaan caafimaadka ayaa ku jira in banaanka loo soo baxo oo la sheekaysto asalkeyga waxa weeye Swedish inkasta oo awoowayaashay mar hore ka yimaadeen Sweden wali asalkeyga waan jecel yahay sidee darteed Swedish waan ku hadlaa luqada iyo dhaqanka waa muhiim carruurtaada af Soomaali bar kulana hadal carruurtaada u sheeg sheekooyin sida din iyo dawaaco igaal shidaad iyo degder carruurtaada mahmaha Soomaali bar mataqana mahmaha waan jecelahay aqoon la'aan waa iftiin la'aan aqoon la'aan waa iftiin la'aan iyo imika waan dhamaanayaa waan heesayaa waxyar heestaan waa manta waa maalin weyne maanta manta waa maalin weyne maanta manta marahen banane maanta iyo waan sheegayaa maanta waa maalin weyn run waaye maanta waa maalin weyn oo jaaliyada Soomaaliyeed isku yimaadeen oo ay awoodooda isku keeneen mahadsanid